dacaladeeda ka dhaca barnaamijkan daawadayaal wuxuu noqon doonaa barnaamij toddobaadle ah oo si toosaba usbuucaad hal mar uga daawan doontaan telefishinka caalamiga ah ee Cable TV barnaamijkan waxaanu kaga hadli doonaaba waxyaalo fara badan oo kala duwan ha ugu horeeyaan dunida islaamka dadka ku soo biiray dhacdooyinka la yaab kale aan aqliga bini'aadamka ku soo dhacay iyo waxyaalo kale fara badan qodobka ugu horeeya barnaamijkan haddaan soo qaato waxa uu ku saabsan yahay gabadh iyadoo u dhalatay dalka Ireland oo magaceeda loo yaqaan Sahra Charles Sahra runtii waa gabadh islaam ah waxa ay soo martay meelo fara badan waxaana la soo kulantay dad fara badan oo islaam ah intii ay ku jirtay baaritaankeeda aqoonta ugu dambeyntii Sahra waxa ay dariiq dheer u soo martay sidii ay ku islaam lahayd iyadoo markii dambe shaaca ka qaadayba in diinta islaamka ay tahay diinta kaliya ee Ilaahay ugu talagalay addoomihiisa inay ku caabudaan iyadoo sheegtay haddii dadku sida ay tay u qaataanna uu Ilaahay u naxariisanayo Charles oo kaliya nafteeda halka Ilaahay kuma hadin sidoo kale odaygeeda iyo ubadka ay dhashayna kadib iyadu markii ay islaantay ay galeen diinta islaamka waa tan Sahra Charles oo inooga waramaysa taariikhdii dheeray iyo hanaankii dheeray ay soo martay safarkeedii ay ku timi diinta islaamka shakiga iyo yaqiinta waxa u dhaxeeya masaafooyin sharka iyo khayrkana waxa u dhaxeeya talaabooyin waxa soo talaabana waxa ka soo gudubtay Sahra Charles oo martino ah waa macluumaad ka dhigta luqadda Ingiriisiga jaamacad ku taala Shaariqa waxaanay nagu sheekayn doontaa sidii ay ku timi badweynta islaamka Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacayga waxa la yiraahdaa Sahra Charles waxaan ahay muslimada Ingiriisa tagay noloshaydii hore dalka Ingiriiska laakiin markii aan weynaaday waxaan tagay Sweden halkaas oo aan joogay muddo 10 sanadood haddaba intii aan joogay Sweden iyo Denmark ayaan la kulmay qaar ka mid ah ummadda muslimiinta waxaana iiga sheekeeyeen islaamka oo ahayd markii ugu horeysay waqtiga ka hor maan aqoon haba yaraatay qof islaam ah weligeyna uma socdaalin oo uma safrin dal islaam ah hase ahaatee waan u safray oo aan wada tagay dhammaan dalalka Yurub iyo qaar ka mid ah dalalka qaaradda Aasiya laakiinse weligey maan tagin dal Carabeed bas kaliya waxaan booqday Turkiga Afghanistan Iran laakiinse runtii lamaan kulmin qof muslina oo la sheekaysto sidaa darteed waxa ay dhamaystirnaantay aqoon la'aantii aan ka qabay diinta islaamka maxaa yeelay waxba kama aqoon iyada runtii laakiinse markii ay dadku iiga sheekeeyeen waxaan bilaabay inaan u fahmo in yar diinta islaamka waxaanan ogaaday dad fara badan oo muslimiin ah inay ku nool yihiin caalamka oo aan Carab ahayn iyo qaar aan kuba dhalanin diinta islaamka dad fara badan oo sidaydoo kale ah ayaa diinta islaamka ku soo galay iyagoo u soo maray marxaladooyin kala duwan iyo dariiqooyin aad u adag runtii aad baan u farxay markaan ogaaday inay diinta islaamku tahay diinta kaliya ee caalamka wixii aan ka dareemay iga soo jiitay diinta islaamka inay ahayd diin dareen fiican oo ku dayasho mudan sidaa darteed waxaan u maleeyay inaan ahay qof barakaysan oo shakhsiyad fiican waxayna taasi ahayd runtii guul weyn runtii markaan wax fara badan ka bartay diinta islaamka waxaan ogaaday oo aan qiray inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta islaamka iyadu kaliya dan uma aha bulsho kaliya waxa ay dan u tahay dhammaan caalamka oo dhan waa haddii loo raaco siduu Ilaahay inoogu talagalay inoogu amray walaashayni Sahra waxay u safartay dalal fara badan oo Yurub iyo Aasiya hase haatee waqtigaasi waxba kama ogaanin wax ku saabsan diinta islaamka in yar mooyaane ilaa markii dambe ku soo noqotay Ireland haddaba ka hor intii aanan diinta islaamka gelin waxaan ku noolaa 10 sano Sweden iyo 1 sano oo kaliya Denmark waxaanan halkaa kula kulmay dad si fiican ila dhaqmi jiro oo aad u wanaagsan laakiin ihtimaam kama siin jirin inaan soo galo diinta islaamka waxaanan moodaydu inaanay ka duwanayn diintooda marka loo eego maadiga dhadhanka sharaabka guurka aanu dhimanayno haddii aan naftayda ka hadlo runtii intaan noolaa waxaan dareemi jiray inay wax iga maqan yihiin
waxaana inay dadkuna wuxuu raadinayaan sidaydoo kale. sidaan idiin sheegayna waxaan u safray dalka Hindiya, halkaasoon muddo fara badan joogay. waxaan cisoon raalli ku noqdo noloshaydii hore aan ka yimi markii aan joogay Sweden. sidaasoo kale baan runtii markii aan diinta islaamka galay, Ilaahay baa mahad leh. waxaan joogay airline, waxaanan diinta islaamka ka raadiyay reerkaygii oo anaha diinta islaamka. runtii way iga aqbaleen, maxaa yeelay waxay ahayd diintii xaqa ahayd. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inagu manaystay hanuuninta oo aan raacno dariiqiisa dhabtaa waqtigii ku habboon tahay. diyaarsan inaan farxad ku soo dhaweyno. runtii anigu aad uma sii danaynin. waxaan u maleeyay sababtuna inay tahay markii hore waxay ogaayeen anigoo faraxsan. imikana noloshii nolol ka farxad badan baan ku jiraa. waxaan 100% ka fiicanahay hadda oo aan ka farxad badanahay weliba sidii aan hore u ahaan jiray. sidaa darteed labadayda waalid iyo walaalkayba arrinkayga umay warwarin, iyagoo weliba ahaa dad Kiristana. waxaana walaasheen u soo baxay iftiinkii islaamka, waana u soo bixi doonaa iftiinkaas qof kastoo xaqiiqada raadiya. dadkii Ingiriiska joogay markii aan joogay halkaa anigoo muslina, waxaan u maleeyay inay dad fara badani ku xidhan yihiin mandaqada aan ku noolaa. maxaa yeelay Birmingham oo ahayd meeshii qoyskay waxaa oo muslimiin ah oo meel kasta laga soocay. aniga marka loo eego markii aan Ingiriiska ku noolaa, mandaqadii aan joogay iyo magaaladan joogayba wax mushkilada kulamaan kulmin, ee waxaan dareemayay deganaansho iyo xasilooni. waxaan halkaa kula kulmay dad degan oo runtii aad u ixtiraam badan. waxaan oran karayaa si guud dhammaanba dadka Ingiriisku waa dad aad u wanaagsan oo dulqaad badan oo runtii u naxariista dadka muslimka. intaan ka garanay waxay u dhooftay Bakistan iyo dalka Hindiya, waxaana si yar oo kooban u baratay dadkii, laakiinse kumay farxin oo kumay qancin qaabka loola dhaqmayo dadka ajnabiga ah. markii aan u socdaalay dowladihii Aasiya, gaar ahaan Bakistan iyo Hindiya, meel dhow ayaan ka bartay dadkii. hase ahaatee qof muslima oo si dhaba noloshiisa ugu dabaqaya dhaqanka diinta islaamka. sidaas waxay keeneen inaanay ii soo dhawaanin aniga oo ahaada qof ajnabiya, iyagoo aan raalli ka ahayn inaan u soo dhawaado amaba aan la sheekaysto. waxaanan arkay inaanay dadkan in badan iiga sheekaynahayn diinta islaamka. marka laga dalka Afghanistan oo aan weyn oo ahaa nin aad u wanaagsan oo si fiican ula dhaqma dalxiisayaasha. waxa uu lahaa meherad yar, waxaanu dadka ugu baaqi jiray inay meheradiisa soo galaan. runtii annaguna aad baan uga helnay oo ugu mafsuudnay soo dhaweyntiisa iyo naxariistiisa badan. runtii habdhaqan aad u wanaagsan iyo martigelin fiican ayuu lahaa. waxaanan ogaaday inuu yahay shay aad u muhiim ah marka uu qof muslimi qof kaloo muslima si fiican ula dhaqmo. taasina waxay ku tusinaysaa dhaqanka fiican ay islaamnimadu leedahay, waana siduu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaanu tusaale inoo siiyey sida akhlaaqda fiican loogu dhaqmo. tusaale